السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حرمات علينا مدحوينها جمهورية الصوماليات، وزير كارمها دينتي ووقافته، وزير كوحبرشده، وزير كمحتويده، وزير كحوين كارمها دينتي ووقافته، وزير ذي هوري إلمان حكومة أي هلك كم تلايان ورسيت كويها أما مدح وياها مدحوينها دكتور شيخ حسن شيخ محمود جزاهم الله خيرا. ومهد علينا دورك علماء دان أي إسلاقين أجاسنك جهود وكبحي السكينيدة شوينا علماء الصوماليات وأنا ما أنت بالله وقتها دير صومري ما أنت هالكن جوجا وقتها وكبحي حكومة دولة قادتي وزير كارمات الدين وكلا شقي هذا نقوم هذا علينا مرة لبعض وحن سيجارة نقوم هذا علينا يا للدجال لك خوارجته casriga ee uu ku dhiiraday isagoo hogaankii ummadda Soomaaliyeed horay aysan u soo marin madaxweynuhu uu istaaga in khawaarijta qalabka loo qaato oo dadka iyo dalka laga xoreeyo ku dhiirashada uu ku dhiiradayna si aad iyo aad oo kal iyo laab aan runtii ugu mahadcelinayna isaga xukuumaddiisaba. mahadcelinta kadib waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo shirweynahan maanta halkan la isugu yimid wuxuu caddayn u yahay ama culimada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay dadka Soomaaliyeed u caddayso waxa ay kulliyaat al-khamsa diinteenu ka qabto in la ilaaliyo qofka muslimka ah dhiigiisa, maalkiisa, nasligiisa iyo caqligiisa in la ilaaliyo waxa ay mas'uuliyadda ka saaran tahay waa dawladda Soomaaliyeed. dadka Soomaaliyeedna waxa looga baahan yahay inay kula shaqeeyaan. waxa maanta fursad aad u qiimo badan oo aan ku faraxsanahay khawaarijta maanta dagaalkeeda hore u soo bilowday sida Sheekh Cabdulqaadir iyo rag badan ay uga hadleen, culimada hore bayaano uga soo saareen, qalabkana waa u qaateen oo horkaceen sida ogsoontiin ay u bilaabeen 2008 ay u horkaceen in ummadda Soomaaliyeed ay iska dhiciso aysan diin wadin. laakiin waxaa maanta guul oo fursad dawladda Soomaaliyeed oo hor socota. marka waxaan dhihi karnaa maanta la dagaalanka ma waa ciribtirka iyo dagaalka khawaarijta iyo fikirkoodan dhihi karnaa. sidaa daraadeed waxaan codsanaynaa inaan loo kala harin oo saf isku mid lagu galo la dagaalanka awoodooda iyo ciribtirka fikirkooda. ugu dambeyntii waa la dhinac taagan yahay. waxaan rabaa inaan fikirkayga shirweynahan aan ka qabo aan maanta aan muujisto. waxaan dhihi lahaa qofka guushiisa lagama xasdo. runtii madaxweynaha Soomaaliyeed maanta iyo xukuumaddiisu waxay guul u heleen aan tilmaanna uga dhigi lahaa islaamka qadiyad aad u adag oo laxaw badan soo martay muslimiinta. waa furqadii iyo kala tagii quwaddii islaamka iyadoo ay weli nool yihiin saxaabatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. waad ogsoontihiin inay dhiigga iska shubeen oo dhibaato ka dhacday. waxaa soo maray wax farxad leh oo taariikhda islaamka galay oo la yiraahdo caamul jamaaca waxay ahayd ijtimaacu almuslimiina bacda alfurqa wa itilaafihim. muslimiintu inay midowday oo ay hal meel isla martay kala tagoodii kadib. sanadkan waxaan anigu shirweynahan u rajayn lahaa inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliyeedna uu sabab u noqdo caamul jamaacati al-umma inay noqoto ijmaacu al-umma inay runtii in la yiraahdo caamul jamaaca lil-ummati Soomaaliyiin oo fikirkii kala duwanaa iyo furqooyinkii kala muuqday sanadka isu soo dulmeen oo ay dad iyo diin mid ay ka noqdeen oo la badbaadin lahaa maanta inuu noqdo shirweynahan uu noqdo shirweynihii ijtimaacu الأمة الصومالية نقدر فكر كي كسوكوبي لها ودمنتي جزاكم الله خيرا مرة بعد مرة سدحات
aan shirweynaha dhan u mahadcelinayaa si gaar ahna gabdhaha waxaan xusuusinayaa libin gaar inay ku leeyihiin islaamka laakiin islaamku inuu asagana u galay galada aan hor usoo marin iyagoo la duugayo islaamka xorriyadda siiyey marka inay maanta horteena ka hadlaan sharaf inoo tahay xusuusta inoo qoreenna waan lagu qornaan doontaa وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك جزاك الله خير شيخ أحسن الله إليك. قدوميها قرصورك عدالة الرماها الدين تيقولها شعبك حلبان شيخ علي حاج داهر سليمان كلمتين إن شاء الله دقيقتين